السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا شيء فرصن سنة أنا قال سويتي نوا فرصن كل اختيار وورين سود وهذا تنو قصة سبسكرايب وصار ظهرنا لوتشو بتكتير لسيجوب فيديو قدرت كشير لايك وحي فرينا كومنتين وغوري وأصحاب هذا الله شير قري إن شاء الله واتكفى عيدي دونتا إذا ربتيت برنامج وان كذا هذلينو يصيدوا وصعم دونو inaad ogaatid la sii joog ilaa fiidiyowga dhammaadkiisa sii daawo soo dhawaada. waxaan maanta ka hadlaynaa barnaamijkaas oo cusub oo ku soo biirnay hadda channelkeena barnaamij ciyaalka ah oo ilmaha markaas u dhasho insha Allah bilbil ma uga hadli doonaa saan hore weyn ku sheegay fiidiyowga ku horeeyay aan ku sheegay. hadda waxaan ka bilaabaynaa caawa fiidiyowgan ilmaha ay markaas u dhasho markuu soo dhasho ilaa inta bil gaaray ilmahaas markuu ilmuhu soo dhasho qolka intaana wali laga soo saarin waxyaabaha looga baahan yahay in qolka dhexdiisa lagu sameeyo dharku xidhan lahaa haday tahay sida maxay ahayd xundurta wax dunta qofka uu yaqaano loo daryeeli lahaa ilaa inta ka dhacayso sida xudunta u daryeelisid aad u daryeeli lahaa ilaa inta ka dhacayso u bogsato miisaanka ilmaha intuu ku dhasho iyo inta maxay ahayd ku kordhi karta dabiiciga ah dharka maxay ahayd intuu bilu buxsameyso inta ku kordhaysa macnaha dharkiisa intuu yahay ilaa intuu bisha u buxsameyso inta ku kordhi karta nasinta oo kale nasinta waxa la yiraahdaa meeshan iyaalka jilicsan meeshas qofkii aan u fahmay nasin baan u sharaxaya macnaha qofkii u fahmay uu garanayaa iyadana macnaha ilaa inta ku xirmi karto iyo inta ilaa inta hadii intaas ka hor xiranto dawlad mushkilad ku iman karto kale waxyaabahaas aan ka hadli doono insha Allah xabadaan dul istaagno isoo dhawaada 3 waxaan ka bilaabi doonaa markaas marka ugu horeysa ilmuhu soo dhasho qolka intaan laga soo saarin wali koob maxaa looga baahan yahay in ilmaha loo qubeeyo qolka dhexdiisa loogu qubeeyo ina maxay ahayd loo soo geliyo dharkaas oo ah dhar ilmaha ku habboon oo suuf ka samaysan amba maxay ahayd cutub amba cudbi kolba qof uu yaqaano ka samaysan kuwaas oo dharkaas oo ah kuwa aan ku dhegsaneyn ilmaha oo macnaha geejinaynin oo ilmuhu ku dareemaynin ciriiri oo kale amba aan ahayn kuwa ka waaweyn oo ka balbalaqsan waxa kale looga baahan yahay in ilmaha kolba waqtigu ku jiro weeyaa waxa loo gelinayo macnaha hadii waqti kuleyl lagu jiro looma gelinayo dharkii qabowga hadii waqti qabow lagu jiro dharkii kuleylka looma gelinayo intaas waa la iska wada garanaya mid kale waxa weeyaan adiga markaad is eegtid adoo qof weyn ah macnaha qofka qaan gaaray oo kale dharka intuu gashado imka dad hal shay kaliya inta gashan tahay waa xagaayo kala moodku waa waqti kuleylkii waxaad gashan tahay hal shay baa kugu filan marka hadii aad adigu arkaysid inaad hal shay gashan tahay kugu filan tahay ilmahaas markuu soo dhasho wuxuu u baahan yahay inta aad u gashan tahay in laba shay kaaga siyaadaan marka ka soo qaadano matalan hal shay baad gashan tahay ilmihiina saddex shay buu gashanaya intaas waa mid kale waxay ku xiran tahay qabow kale hadaa la joogana waa sidaas hadaa aad laba shay gashan tahay qabowgii oo labadaas maraad gashan tahay aad ku dareemaysid ina macnaha aan qabow dareemaynin isagana afar shay waa loo gelinayaa maadaama macnaha qabow lagu jiro taasi waa dhinacaas wax kale ka hadlaynaa iyadana indho sheegay dharkaas aan khafiif kana ahayn kuna dhegsanayn kana balaarnayn qodobka labaad ee ka hadlayno waxa weeyaan naas nuujinta markaas ilmuhu u dhasho intaasad in lagu bilaabo wanaagsana soo aqoonsiisa si fiican ugu koro oo macnaha ilmo uu noqdo firfircoon oo maskax badan waa in hooyadu naaska nuujisaa marka ugu horeysa bilowga ay ku bilowdo hadii macnaha duruufyo way jiri karaan oo qofka haduu xanuunsan yahay uu awoodinin amba maxay ahayd markii ilmihii dhashay hooyadii ka dhimasho kale kuwaas oo kale waxa xaalad daruuri ah la yiraahdo waa laga reebaa laakiin waxa ka hadlaynaa waa markii hooyada caafimaad qabto amba ay awoodeen inay nuujiso insha Allah taasna halkaas kaga baxaynaa iyadana caana waad siin kartaa ugu dari kartaa laakiin marka ugu horeysa ka hadlaynaa inaad macnaha aad naas ku bilowdid qodobka kale saddexaad waxa weeyaan xundurta ka hadlaynaa xundurta waxa weeyaan inaad ilmaha waxa jira waa sawirka hadii soo dhigi doono insha Allah inaad ka arki doontiin waxa jira bahal lagu buufiyo oo alcohol la yiraahdo amba kaxul carabi hadii lagu sheego amba alcohol
taas oo loogu talagalay xundurta in ilmaha ka caawiso inayna qoyaan sameynin amba bacteria ka sameynin taas bay jirto oo farmasiyada laga helaa marka taas soo iibi ku samee ilmaha markaste maalintii waa in 3 mar aad marka ugu yar tahay haddaan markasta xafaayada ka bedelisa aan ku sameynin waa in ugu yaraan 3 mar aad ku buufisaa xagga hoose xagga sare waxay ka caawinaysaa in xundurtu qalasho hore uga dhacdo in bacteria ku sameeyaan iltihaabaad taas waxa geeda xafaayada marka aad xiraysid in xafaayada aad ku dul xidhid xundurta dusheeda ma aha in hoos uga dhigtaa xafaayada waayo way huurinaysaa qoyaan bay u sameynaysaa taas waa mid kale xagaas ka sii wadayna qaybtaas xagaasaan kaga baxnay qaybta kale waxa weeyaan ilmaha miisaanka ku dhasho waxa weeyaan 2 kiilo waa ugu yar ilaa 4 kiilo waa inta dabiiciga ah 2 ilaa 4 inta u dhaxaysay ku dhashaan marka bisha ugu horeysa ilmuhu u dhamaato maalinta ugu dambaysa bisha ay u dhamaanayso waxa weeye laga rabaa ilmaha inuu noqdo miisaankiisu intii uu ku dhashay inuu ku biiro ilaa 100 gram oo kale inuu ku biiro ay laga rabaa dhararka ilmaha uu ku dhasho waxa u dhaxeeya 46 amba 46 ilaa 55 inta u dhaxayso ku dhashaa mar hadduu 50 hadduu ahaa amba 55 uu ahaa waxa weeyaan inuu noqdo marka bisha u dhamaato maalinta u dambaysa bisha ayaa la qiyaasayaa waxa laga rabaa inuu noqdo 58 inuu noqdo markaas intaas kaga nimaano maxay ahayd taasna waa qaybtaasna waa dhinacaas mid kale xigtaan ka hadlayno waxa weeyaan nasinta waxaa meeshan ilmaha jilicsan markuu ilmuhu dhasho meeshaas oo kale waxay ku xirantaa sida dabiiciga 6 bilood ilmaha marka u dhamaato bisha 6aad ilaa iyo 2 sanadood inta u dhaxaysa markaas inta ilmaha 6 bilood uu ka yar yahay haddii ay meeshaas daboolato oo ay xiranto macnaha waxa weeyaan ma wanaagsana caafimaad ahaan ilmaha dhakhtarkiisa kula noqo dhakhtarka la socda ilmaha kula noqo wixii mushkilad jira sida ku sheeka 2 sanadood hadduu ilmuhu dhaafo 2 sanadood markuu buuxsamaan ay meeshaas ay xirmina taasna ay mushkilad bay jirtaa dhakhtarkiisa kula noqo laakiin inta uu xaysa dabiici weeyaan way xirmi kartaa mid kale ilmaha markuu bil jiro xaga hadda ka hadalno xagga maqalkiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa iyo araggiisaba horta dhaqdhaqaaq badan ilmuhu male waayo waa bishii ugu horeysay oo macnaha 2 toddobaad ugu horeeyay khaasatan wuxuu dareemayaa wali in caloosha ku jiro kale laakiin xagga maqalkiisa waxaad ku ogaan kartaa ilmaha marka uu seexdo amba uu jiifo kale uu naxaya hadduu shaqo dheer amba qaylo maqlo inuu maqlay waxaad ku ogaanaysaa ilmuhu uu naxay uu qaylina uu ooyaya amba asagoo xataa ooyin ilmaana ooyin ba jiro macnaha uu dareemaya wax ka dul hadleen uu ku toosaya mid kale aragtida ilmaha markuu bisha ugu horeysa uu jiro meel fog waxba kama arko oo 10 cm ka badan waxba kama arki karo marka waxa in ka soo dhow ka arki karaa waa dareemi kartaa marka dul istaagtid asagoo isha kula raacaynin oo raac wali male laakiin haddana dareemi kartaa inuu ilmuhu ku soo eegayo ku arki karayo wajigaaga u dhaweey wada arki kartaa marka mid kale xigta waxa weyn dhaqdhaqaaq badan ilmuhu male ilmuhu hurdo badan yahay markaas oo kale waqtigiisa hurdada hadaan raacino ilmaha markaas inta u dhaxayso wuxuu saxdaa 15 saacadood ilaa 18 saacadood bas laakiin isku ma xirxirna maadaama kolbo hore u kacaya naas badan ma cabayaan bacaanada caano badan ma cabayo iyo markuu qaato markiiba uu ka seexanaya aba markiiba uu dhargaya calooshiisa maadaama yar tahay markii in yar markuu hurdaba 2 saacadood hadduu hurdaba uu kacaya 2 saacadood ka badan haddaad aragtid inuu hurdo oo uu kicin inuu maxay ahayd wax cabo ilmaha kici oo wax si macnaha koritaankiisa uu fiicnaado bisha ugu horeysa hadduu hurdadiisu badato adiguna aad iska dhaaftid macnaha ka hadhow koritaanka ka xumaan kara habeenkii bay noqotay habeenkii waa waqtiyada ilmuhu ugu badan yihiin inta ugu horeysa bisha ugu horeysa ama inta 40 ka baxayaan habeen oo dhan ugu soo jeedayaan u dulqaadka badi si aad wax badan u siisid ilmaha bisha ugu horeysa markuu dhaafo ama 40 markuu soo ugu baxo insha Allah isbedel badan oo ku iman doona sida rabtay ayuuna noqon doonaa insha Allah adiga hadiis u sixi doona ko marka bisha ugu horeysa ilaa inta 40 ka baxay u samira insha Allah waxa ka san ka baxayna bisha ugu horeysa ilaa dhalashadiisa ilmaha bisha labaad iyo sidaas isla socod wanaagsan kolba barnaamijyada habeenba wax soo gudbi doona qayb marka
siina share gareeya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.